Somaliland way ogtahay halka laga soo maleegayo shirqoolada dilalka waa murta ay ku saabsan tahay faaladeena warku waana qalinkii Cabdilaahi Aadan Cumar Wayaba shaqooyinka iyo shirqoolada dilalka qarsoona ee sida istaba jooga uga dhacaya magaalada Laascaanood waa falal fulaynimo oo ay soo maleegayaan kuwa cadow ku ajiritaanka qaranimada Jamhuuriyadda Somaliland kuwaas oo markay awood kala waayeen door biday inay u hawlgalaan sifa kasta oo ay ku qalqalin karaan wadajirka amaanka iyo xasiloonida ka jirta Jamhuuriyadda Somaliland iyo inay deegaamo cayiman ka abaabulaan rabshadaha abuuri kara inay isku dhacaan shacbiga iyo ciidamada amaanku maamul goboleedka Garowe ee Soomaaliya oo wali damac kaga jiro kuna hadaaqaya markasto ay hadlaan sheegashada qayb ka mid ah dhulka bariga Somaliland oo ay ka mid tahay magaalada Laascaanood waxa ay ka hadleen shaqaqadii ugu dambeysay oo ay hadalkooda ku muujiyeen sida ay ugu faraxsan yihiin dhibaatooyinka ka dhacaya halkaasi iyo inay taageersan yihiin falalka ka dhacaya Laascaanood maadaama ay saacad ugu baaqeen bulshada reer Laascaanood inay sii wadaan oo ay sii kordhiyaan rabshadaha iyo falalka argagaxa leh ee lagu beegsanayo waxgaradka reer Laascaanood wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka Soomaaliya ee Garowe oo ka hadlay dhacdooyinkii dhilada lahaa ee ugu dambeeyay ee Laascaanood waxa uu ugu baaqay shacbiga halkaasi ku nool in aanay joojin rabshadaha iyo inay diidaan oo ay ka soo horjeedsadaan diiwaangelinta doorashooyinka Jamhuuriyadda Somaliland waxaana hadaladiisu ay markhaati cad u yihiin in maamulka Soomaaliya ee Garowe aanay la gaban inay iyagu mas'uul ka yihiin shirqoolada dilalka ee ka socda halkaasi isla markaana ay dhiiri gelinayaan talaabo kasta oo sii hurun karta dhibaatooyinkaasi waxa kale oo maamul goboleedka Garowe ugu baaqay madaxda Soomaaliya in aanay indhaha ka qarsan ee ay gacan ka geystaan doorkooda kaga aadan sidii Somaliland looga farmuroojin lahaa deegaamo ka mid ah bariga Somaliland maamulka magaalada Laascaanoodna dib loogu soo celin lahaa gacantooda isagoo geesta kalena ugu baaqay wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka Garowe in madaxda Soomaaliya ay gaarsiiso beesha caalamku sida dadka reer Laascaanood ay u diidan yihiin ka mid noqoshada Somaliland murti Soomaaliyeed ayaa tiraahdaa libaax nin kanay iyo nin galaday kala og waxaanu u sheegaynaa maamul goboleedka Garowe ee Soomaaliya inay Somaliland ogtahay halka laga soo maleegayo shirqoolada dilalka ee sida gaarka loogu beegsanayo waxgaradka reer Laascaanood ee u heelan in deegaankooda uu helo deganaansho nololeed oo xasiloon si horumar looga gaadho dhinacyada asaaska oo nolosha oo ay ka yihiin waxbarashada caafimaadka biyaha iyo kaabayaasha kale ee la xiriira dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada dhammaanba falalka dilalka qorshaysana ee ka dhacaya magaalada Laascaanood waxa uu salka ku hayaa dabar siyaasadeed oo lagu dhantaalayo jiritaanka qaranimada Jamhuuriyadda Somaliland waana siyaasad ay ka wada shaqeynayaan dhinacyo badan oo si weyn uga soo horjeeda aqoonsiga Somaliland kuwaas oo iska kaashanaya fulinta falal argagixisanimo oo lagu weeqayo amaanka iyo xasiloonida gobolkaasi si dunida loogu muujiyo inay Somaliland tahay meel ay ka jiraan falqalalooyin siyaasadeed amaankeeduna yahay mid aan la isku halayn karin shirqoolada lagu qarajinayo waxgaradka reer Laascaanood waxa mar walba lagu beegsadaa in lagu kala daadiyo amaanka isla markaana lagu carqaladeeyo waqti kasta oo dadka reer Laascaanood ay u jeestaan xagga horumarka iyo hirgelinta nidaamka dimuqraadiyadda tusaalana waxa inoogu filan hadalkii ka soo yeeray madaxda maamul goboleedka Garowe oo ay ugu baaqeen in dadku ay sii wadaan rabshadaha oo ay diidaan diiwaangelinta doorashooyinka Somaliland taas oo ahayd ujeedada qura ee laga lahaa shirqooladii lagu qarajiyay Allah uu naxariistay marxuun Cabdifataax Cabdilaahi Hadraawi Jamhuuriyadda Somaliland si fiican ay u taqaanaa sida loola dagaalamo cadawga dhuumanaya ee dhabarka muuqdo iyo kana soo bareeraba dulqaadkiina hadda waa ka soo dhamaaday reer Somaliland waxaana ay horgeynayaan oo ay u gudbin doonaan beesha caalamka hadaladii iyo baaqi fidmada xambaarsanaa ee wasiirka warfaafinta ee maamulka Garowe uu u mariyay warbaahinta shacbiga reer Laascaanood ee uu ku dhiiri gelinayay kuna bogaadinayay rabshadihii ka socday magaaladaasi sidoo kalena uu ku tirtirtiyay inay diidaan diiwaangelinta doorashooyinka Somaliland kuwaas oo maragmadoon ah shirqoolada iyo xasilooni darrada oo maamulkaasi ka wada dhulka Jamhuuriyadda Somaliland waxa la yiri ama afeefara lahaw ama adkaysi yeelo
sidaasi daraadeed waxaan u sheegaynaa cid kasta oo faraha kula jirta arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland in aan dib loogu dul qaadan doonin kana heli doonaan jawaab celin u dhiganta ficilada qaawan ee ay ka wadaan meelo kamid ah xuduudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. intaasi waxaan ku soo gabagabeynayaa faaladii warka oo uu qoray Cabdilaahi Aadan Cumar Wayb waxaan idin la socodsiinayaa anigoo Saabi Cabdi Goole.